waxaa galabta degada Banaadir Stadium lagu soo gabagabeeyay koobka Super Cup-ka dalkeena Soomaaliya oo ay ciyaaraan kooxda ku soo guuleysata horyaalka dalka Soomaaliya iyo kooxda ku soo guuleysata koobka General Daoud. Banaadir Sports Club oo ku soo guuleysata koobka General Daoud iyo kooxda kubadda cagta Elman oo ku soo guuleystay horyaalka dalkeena Soomaaliya. ciyaarta oo aad u xiiso badneed ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ciyaartoydii hore iyo daawadayaashii ugu badnaayay ebed ka soo qayb gala ciyaar noocan oo kale. qaybtii hore ciyaarta ayaa waxaa goolka garoonka furtay kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club waxaana u saxiixay gool qurux badan ciyaaryahanka lambarka 7 u xirta kooxdaasi Dada Amin. qaybtii hore ayaa waxaa lagu kala nastay 1-0 oo ay hoggaanka ku hayso kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club. qaybtii dambe markii la isku soo laabtay ayaa gool barbaraha waxaa heshay kooxda kubadda cagta Elman waxaana u saxiixay ciyaaryahanka lambarka 9 u xirta kooxdaasi Maxamed Nuur Sharkey. 1-1 waxaa la isla dhaaf waayay waqtigii 90 daqiiqo ee loogu talagalay ciyaarta waxaana loo dhigay sida sharciga ah rigoorayaal waxaana guusha ay raacday kooxda kubadda cagta Elman oo ku guuleysatay koobka Super Cup-ka dalkeena Soomaaliya. macalinka kooxda kubadda cagta Elman oo asagu ku soo guuleystay koobkani asagoo ciyaaryahan ah haatan ku guuleystay asagoo tababaraha Yu Ali ayaa waxa uu ugu waramay warbaahinta qaranka sida uu yahay dareenkiisa. runtii waa wax qayb ka mid ah taariikhdeeda waxyaabo badan oo marka ciyaartooy ahaa aan ku sameeyay ayaa haddana ama macallin aan sameeyay horyaalo inaan qaado aan ku guuleysto Super Cup insha Allah koobka kaliya ee ka dhiman taariikhdeeda waa koobka General Daoud sidana waxaan rajaynayaa in sidaan oo kale aan qaado haddii Ilaahay yiraahdo. sidoo kale waxaa ciyaarta markii ay soo idlaatay inoo suurto gashay in aynu wareysano ciyaaryahan Sahal oo u dhashay dalka Kenya kana mid ah ciyaartoyda dhawaan ay la soo wareegtay kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in uu ka ciyaaro gudaha dalka Soomaaliya. The game was good. Unfortunately we lost, but in football it's always like that. There is a winner and a loser. And I congratulate the winners, Elman, for their game. They played good and we lost. So I congratulate Elman. waxaana sidaasi koobkii Super Cup-ka dalkeena Soomaaliya 2013 2014 ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Elman FC. Ahmed Salaad Shiiqow, telefishinka qaranka, Muqdisho.